السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن السلام يا دمانتين كسو دواذا كورس كيني أما منترشيب كيني فارغ مودل iyo dab كافيكس إن شاء الله waxaan qaadan doonaa mowduuc aad muhiim u ah oo loo yaqaano SMT divergency SMT waa maxay SMT see u shaqeysaa SMT maxay tartaa iyo muhiimada SMT leedahay insha Allah waxaan ku ogaan doonaa caawa casharkeenan haddaan hore u bilaabno horta waa maxay marka ugu horeysa horta SMT su-aasha gurta ka jawaabina waxa weeye waa maxay SMT SMT waxaa loo soo gaabiyaa smart money trap ama smart money technique iyo smart money wax ereygaas labadan qaab baa loo yaqaanaa tida trapna waa la dhahaa technique waa la dhahaa laakiin all in all waxay ka turjumayaan hal macne oo ah inuu yahay dabin ay isticmaalaan smart money ama institutional tradersku ama bangiyadu dabin ay isticmaalaan oo lagu dagayo retail traderska sida innagoo kale dadka mataqaana tafaariiqleyda ama retailka dabina lagu dagayo weeyi SMT waxay ka dhex samaysantaa laba lacagood oo isku jiho ah ama correlated pairska la yidhaahdo lacagaha isku jihooyinka ah ama opposites ku ahaadaan ama mataqaana ama positives ku ahaadaanoo jihaha wada socdaan sida JPB USD oo kale ama negatives ku ahaadaanoo sida euro USD iyo DXY oo kale tusaale ahaan inay mataqaana isku cagsi ku yihiinba marka pairs correlated pairska la yidhaahdo ama isku xiriirsana pricekoodu isku jihada ama kala jihada u dhaqaaqo baa loo yaqaanaa in horta ka dhex dhacda SMT marka ugu horeysa sida euro USD iyo JPB USD waa laba lacagood oo isku jiho ah ama DXY iyo euro USD haddii ay midi qaado high ama low oo beerka kalena ku fashilmo in uu qaado high waxaynu aqoonsan doonaa SMT tusaale yaroo kooban marka halkan waxaa inoo yaalla beerkan waa JPB USD beerkan waxa weeye euro USD beerkan SMT-da wuxuu qaaday wuxuu sameeyey higher high uu sameeyey halkii laga rabay inay euro USD iyaduna qaado high kale sii wada samayso higher high samayso maadaama price isku mataqaana direction isku narrative badan ay yihiin halkii la rabay in iyaduna sii qaado higher high ay sii samayso bay ku failgarowday inay qaado highgan so waxaan leenahay halkan waxaa ka dhacday SMT ama smart money technique baa ka dhacday so SMT waaba intaaba inay lacagi high ama low qaado lacagina ku failgarowdaba horta la yidhahdo gebigeedaba SMT marka lasoo koobaba ee lana soo ururiyo mid qaada SMT mid qaada high midna ku failgarowda inay qaato mid qaada low midna ku failgarowda inay qaado low waaba intaaba marka waa maxay tusaale aan ku celi weliba JPB USD baa qaaday highgan euro USD way ku failgarowday inay qaado highgan that means halkaa waxaa yaalla SMT markaa waaba intaababa haba ku confuse garoobinba okay hadda faa'iidada SMT noo leeda waa maxay SMT fahanayo soo u shaqaysa garanay maxay naga caawinaysaa horta SMT la'aan wax trade ah ma galayno sababtu maxay tahay marka xagga dambe iskula arki doona laakiin horta faa'iidada koowaad ee noo leedahayba waa intrigeeni horta SMT-du oo intrigeenna koowaad baynu ku bees garaynaynaba SMT-du waa maxay waa calaamad kale oo kuwa xaqiijinaysa kala wareegga suuqa iyo in awooda suuqa labadaba way kuwa xaqiijinaysaa marka kala wareegga suuqana way kuwa xaqiijinaysaa jihadii suuqana way kuwa xaqiijinaysaa oo in mataqaana awoodii suuqana way kuwa xaqiijinaysaa mataqaana suuqa lacagtaba awood le lacagtaba awood yarna way ku mataqaana way ku xaqiijinaysaa SMT waxaa loo isticmaalaa xaqiijin oo keliya entry confirmation so iyadu maaha entry model maaha SMT-du laakiin waa entry confirmation oo qaabka entry formationkeenu ama entrygeenu u samaysmayo bay inaga caawinaysaa horto marka aynu SMT trade ku qaadanayno waxa aynu u baahannahay in labada beer ee correlationka ka dhexeeya uu mid ka mid ahi jooga fair value gap ama maxay internal range liquidity horeynu soo aragnay xagga dambe waan iskula arki doonaa markaas SMT-du waa maxay waxa weeyaan in ay lacagna joogto mataqaanaa fair value gap inoo joogta baynu nidhi midna ay ku failgaro sorry mid baa joogta fair value gap labadii lacagood waa tan tusaale ahaan euro USD iyo JPB USD bay soo qaadanayna halkanaan kusoo wareeya so tanaa joogta JPB USD iyo euro USD na waa kan so maxaynu arkaynaa inay tani qaaday lowga tusaale ahaan tanina ay ku failgarowday inay qaado lowgan so ma arkasaan that means halkaa waxaa yaalla SMT soo maha leanno tani lowganay qaaday waa tan lowga ka hoos martay saan u sawirna so ma arkaysaan
lowgaa way ka hoos martay. then halkan maxaa taalla smt. smt din maxay noo sii dheer inay tani feg dhex joogto ama maxay fair value gap inay dhex joogto. marka waa inta horta macnaha guud ee qodobkan dambe ka hadlaya. so maadaama halkaa dhex joogto kala wareegii aynu nidhi waxay noo xaqiijinaysaa kala wareegga waa ansax oo waxa weeyaan ama point of interest baa la dhahdaa fair value gap kasta wada duubabo point of interest haddii inoo joogto waa clean. laakiin inagu forever model haddayn nahay waxaynu more iyo more focus ku ahaan doonaa fair value gapka ama maxay ifg labadaa mid baynu focus ku ahaan doonaa. waynu kusoo qaadanay casharkii labaad aynu si fiican ugu soo qaadanay ugu soo lafa gurnay intaan ma isla fahamnay. marka maxaan uga jeedaa haddaba mar kale dib yara masaxo si aan kuu fahansiiyo. smt horta smt laanta ma geli doonaa nidhi. talabadna waa maxay smt waa calaamad inoo muujisa kala wareegga suuqa iyo awoodda suuqa. haddaba kala wareegga suuqa fahanayo waxaynu nidhi markuu bricekeenii midi ay fair value gap joogto ama labaduba ha wada joogaan be mid ka midi ay joogto fair value gap hadday mid ka midi joogto waa intiri fiican labaduba hadday joogaana kaba si fiicano waa intiri boqolkiiba boqola. laakiin shardigu waa maxay mid ka midina fair value gap ama joogto area point of interest inay joogto waa muhiima. okay taa waan isla fahanay smtda kala wareega say u samaynaysa haddaba awoodda suuqa say u caddaynaysaa awooddii suuqaynu rabnaa inaynu isla fahno. awoodda suuqa waxa weeye laba lacagood baynu soo qaadan in yaraan dib u laabano. laba lacagood baynu tusaale u soo qaadan soo mayna ahayn jbb usd iyo euro usd baynu tusaale usoo qaadan. haddaba labadan lacagoodi lacagtan waxa weeyaan strong asset weeyaan waa lacag xooggan. strong asset baa la dhaha iyada oo waa assetka adag ee mataqaanaa leanno iyadaa qaaday haygii so inay strong tahay oo iyadu xooggan tahay halkanaynu ka arkaynaa. tan ku faylgarowday euro usd na maadaama iyadu ku faylgarowday waxaynu odhanaynaa waa weak asset. isla fahan halkaa waa maxay waa weak asset iyaduna. haddaba marka ma euro usd baa weaka mar walba se jbb usd baa weaka may saa ulama jeedo. macnaheedu mahayna kule euro usd iyo jbb usd ba jbb usd marba strong tahay euro usd na tahay weak tahay maha macnaheedu. waxaan ula jeedaa in lacagta mar kasta ku faylgarowday inay qaado ama aan qaadin hayga ama lowga ku faylgarowday inay hayga ama lowga qaado inay tahay ta wiiga ah. ta strongiga ahina ay tahay ta qaada hayga ama lowga bas. laakiin lacag heblaaya mataqaanaa strong iyo lacag heblaaya mataqaanaa weak ah maahan conceptka halkan kaga hadlayna. okay waan isla fahanay haddaba kala wareegana se u samaysan waan kuu sheegay iyo mataqaanaa awoodda suuqana se u samaysan waan kuu sheegay. sidaynu entry confirmation ugu isticmaalinana waa maxay markaynu joogno fair value gapkeenii fair value gap baynu joognaa. marka la joogo fair value gapkeenii uu pricekeenii yimid mataqaanaa euro usd ay timid tusaale ahaan jbb usd na iyaduna ay fair value gapkeedii timid ma fahantay ay jbb usd na timid fair value gapkeedii ay euro qaaday mataqaanaa lowgan jbb usd na ku faylgarowday that means smt da halkaa taalla waxa weeyaan entry confirmation adag oo aynu suuqa ku baygarayn karno oo waa maxay waa strongest confirmation welibana. smt wax yaroo easy horta ha u malaynina waa strongest mataqaanaa trade lagu qaato confirmationka ugu fiican ee kala wareegga suuqa lagu ogaadaa xataa market shift structureka kale ka adag. market shift structureka ma isticmaali doono xataa intaynu joogno forever model lianno smt baaba wax walba inoogaga filan aan uga baahnayn market structure shift iyo waxa uga baahnayn. smt baa dhammaanteed ina siin doontaa wax alliya waxaynu uga baahnayn mataqaanaa market structure. so haddaba marka waxaan uga jeedaa market reversalka mataqaanaa waxa ugu weyn ee inoo xaqiijinaya waa smt. marka entry confirmationkeeduna horta caynkaas u shaqaynaya may fahanteen. so tusaalayaal dhowran waan isla eegi doonaa aan markaa iska kelin garayno muraayadda. okay haddaba wax kale isla eeginaa marka lacagtan waxay u soconaysaa down train bay samaynaysaa soo ma arkaysaan down train bay u socotaa maadaama lacagtan structuregeeda uu down train ahaa kasoo qad waxaa la joogaa fair value gap soo maaha baa la joogaa leeno inagana inter la-aan ma geli doono mataqaanaa inter la-aantii ma gelina ilaa fair value gap la joogo. okay pricekeenii wuxuu yimid mataqaanaa wuxuu sameeyey lower low ilaa markan wax ku soconay lower low soo maha. laakiin lacagtan kalena waxay ku socotay iyaduna waa euro usd waxay ku socotay iyaduna lower low bay ku socotay. jbb usd waxay ku socotay lower low bay ku socotay. so that means labada lacagoodba waa isku jihol waa isku direction waa isku candles badanaaba soo maha.
laakiin maxaa lagu kala duwanaaday bartanuu ka dhaca differencegu oo waa maxay euro USD way ku failgarowday inay qaada lowgan halka ay GBP USD iyadu qaaday lowgan. That means halkaa waxaa yaalla SMT divergency ama maxay smart money technique ama smart money trap oo ah in lacagtaasi aynu helnay indicatorkii ugu weynaa ama mataqaanaa confluencekii ugu weynaa aynu suuqa ku baygarayn lahayn ama aynu ku sheegi lahayn in suuqaasi reversal dhicayo ama reversal la samaynayo wixii ugu weynaa baynu helnay. Hadda eega wixii ugu weynaayeen suuqaa ku selgarayn lahayn ama aynu ku baygarayn lahayn baynu helnay oo waa maxay reversal horta yaa inoo sheegay waa inaga hore soo sheegnay waxaan nidhi SMT waa reversal indicatorka ugu weyn. reversal indicator waxaan uga jeednay in lacagtaasi jiha bedelanayso ay lacagtaasi jihadii ay ku socotay haddeer mooy jiha kale ay aadi doonto maxaynu ku garanaynaa waxaynu ku garanaynaa SMT baa dhacday. SMT waa reversal indicator kan wasla fahnay soo maha okay markii la sameeyey SMT da maxaa dhacday pricekii loo bushkareeyey to the upside in kor loo tuuray baan arkaynaa markiiba priceka su-aalkaas dhibayna fahmin bal haddaba aynu isla yara eegno tusaalayno aynu iskala soo eegno insha allah mataqaanaa chartiga halkan bay bal hal tusaale iskula eegaynaa insha allah tusaalaha barta inoo yaalla waxa weyn lacagtan waa GBP USD lacagtan bidixdeeda taalaan midigteeda taalaan waxa weeye euro USD lacagtan bidixdeeda taalaan waa GBP USD sida barta ku qoran okay haddaba halkan maxaa ka dhacay baan rabaa inaan si yaroo fudud oo easy aan ku fahansiiyo waxaa ka dhacday lacagta haddaad halkaa u jeedo lowgaa waxaa la sameeyey 18kii jimcihii 18kii July 2025 baa la sameeyey welibana waa labadii oo mataqaana New York Timekiya so halkan maxaa taalla waxaa yaala lowgan waxaa la sameeyey jimcihii 18kii July labadii baa isagana la sameeyey so halkan maxaa arkaysaan inay lacagtani qaaday mataqaanaa lowgan inay qaaday waad arkaysaa so ma arkaysaan halkan maxaa dhacday inay qaaday lacagtani lowgeeda laakiin euro USD way ku failgarowday iyadoo inay qaaday lowga eega halkan ma arkaysaa lacagtan waxay qaaday lowgan bay qaaday lacagtanina maxay iyaduna mataqaanaa GBP USD way qaaday oo maxay qaaday lowgii labadii la sameeyey 18kii Friday baa la qaaday laakiin euro USD way ku failgarowday oo marka maxaa dhacday SMT baa halkaa ka dhacday halkaa ma isla fahanay halkaa maxaa ka dhacday waxaa ka dhacday SMT baa halkaa ka dhacday lacagtan kalena waa maxay waa euro waxa weeye GBP USD iyadana halkaa waxay nooga dhacday SMT haddaba SMT maxay faa'iidada inoo lahayd maxay ahayd waxay inoo lahayd in reversal indicator inay ahayd oo lacagtii ku soconaysay iminka down trainka ku socotay dad badan baa laga yaabaa inay iyagu odhan lahaayeen okay lacagtan waxay noo samaysay mataqaanaa waxay noo samaysay market structure so lacagtii waynu salgarayn doonaa dad badan baa laga yaabaa inay is odhan lahaayeen laakiin adu maxaad garanaysaa maxaad isticmaalaysaa confluencekii ugu muhiimsanaa reversal indicatorka oo SMT da ahaa SMT baa dhacday low baa la qaaday lacagtana low bay ku failgarowday that means halkaa waxaa yaalla SMT na waa maxay waa indicatorka ugu muhiimsan indicatorka ugu adag ama mataqaana ideyada ugu muhiimsan aynu suuqa ku baygarayn karno ama aynu ku salgarayn karno so marka iyagoo fara badan mataqaana SMT da iyo qaabka u shaqaynaysaa waxay yaalaan telegramka casharka ugu horeeya committee ugu horeeya binka bay yaalaan gal halkaasaad ka arki doontaa insha allahu tusaalayaal badan oo SMT da ku saabsan iyo si SMT da u shaqayso marka minku waxaan isla fahanay SMT da waa isla fahanay fair value gapkina waa isla fahanay internal range liquidity iyo external range liquidity waan isla fahanay fair value gap iyo inversion fair value gapna waan isla fahanay cashar mataqaanaa modelkeena qaybihii ugu muhiimsanaa iminka waad qaadatay dhowrka qaybooda hadhana insha allahu xagga dambe baynu iskula eegi doonaa wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu